السلام عليكم أصحاب تقارير سود وهذا بدل لنا إضافة عام كيدنيز ميل كستر جوكتان أنت هبين تهيي أنت مالين تهيي أنت قلب تهيي وحنا لنا سود وهذا برنامج روان كوبان أو كوف صابسن برنامج هذا معلومة قدام بيصير فايرال كنا قضي برهاب الشدة صومالي ذا كوكلانتو كهر أنت إننا برنامج وجود جلين فيديو والله تكو قبو شير قراء ولو ذا أصحاب تعشين فيديو ذا نقلا يداودان سبسكرايب تنصار سود وهذا بدل لنا مركان maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijkii ugu dambeeyay maalmahan ugu dambeysay viralka noqday ay Soomaalidu ugu magac dareen ama ay ku sheegeen Illuminati marka Illuminati muxuu yahay Illuminati waxa weeyaan inta aynu inagu ka garanayno waxa weeyaan waxyaabo ay dad gaari aaminsan yihiin dadkaas oo gacanta ku haya siyaasadda caalamka maamula dhaqaalaha dunida maamula waxyaabo fara badan oo dunida ka dhacayna iyo gacantooda ku sababay haddaba Australia kamid ah waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden yaa kamid ah Trump waxa kaloo kamid ah fanaaniinta ugu caansan dalka Mareykanka Rihanna Justin Bieber iyo kale lagu soo koobi karaa waliba dadkaasina waxay isku dayaan hadii qofku marka uu ka baxo in maaragtay qofkaasi una sirahoodii u gaarka aanu gudbinin dadana inuu qofka nafta la dhaafsiyo sida fanaaniintii ugu caansanayd ee waqtiyadii qarniyadii hore Bob Marley Ethiopianka Michael Jackson marka qofku waxa weeyi hadii uu galo uu gali kara laakiin wada laga baxo meeshan male horta hadaynu muslimiin ahayn ilaahay naga nabad geliyo inta maaragtay doonaysa sheekada ka gudbadana waxaad soo akhridaan buugga aan idin soo dhigay description-ka ama comment-ka ugu horeeya buuggaas oo ah mashruuci la dagaalanka nuurka halkaas aad ka helaysaa xogta ugu faraha badan ee Illuminati lagu sheegayo marka maalmahan ugu dambeeyay Soomaalidu bay hadda soo gashay mar barbar oo la leeyahay imka 2 days ama 3 days meel uu ku maqan yahay yaa kala kamid Suldaan Seraar oo shalay isagana la soo qarxiyay oo leeyahay indhihiisu leeyahay runa kasiruna kaysa man alladhu habeenkii dharar hadalkad waa moogeen oo shalay isagana la soo qarxiyay oo leeyahay indhihiisu leeyahay maaha Suldaankii ay naqaanay maaha DJ Swear baa kamid oo sawiraantiisu maalmihii ugu dambeysay saddex Soomaaliduna mid bad ku fiicantiino xagga sirdoonka leedin kama badiyo oo muuqaalkii maanta la soo dhigo xogtiisa waxaad ku soo helaysaan 10 daqiiqo ni xagga aad ku fiicantiina like baad leeyahay halka kaga haya Soomaaliduna waxay ku fiican yihiin isku baraaruga umar barbarinka mawduuciisa kala hadda dib ugu soo noqono markii uu codsaday in lawyer Canadian loo qabto de safaaradda dhameeyay Canada waxay gashay ciriiri Soomaalida waxaan ku culaamadiina lama haysan karo ciriiri bay gashay yaa helbi umar barbar baa loo wada qoray intii luqadda jajabsanaysa Norwegian kuna wad ku hadasheen marka barnaamijka ma arkay ma sii dheeranayno laakiin waxaan idin leenahay halka waxaad kala socon doontaan maalin walba waxyaabaha cusub ee soo kordha barnaamijka nagu magac dareyno maxaa cusub iyo maanta barnaamijkaas halkan kala socon doontaan maalin walba 4 saac ugu dambeeyay magaalada wixii ka dhacay oo si toos ah idin ka daba geynayo si marka aanu barnaamijkaas idin dhaafin subscribe saar qona daawadaha ugu horeeya ee video-gaygu soo gaaro mid kale aad ku daran kambalaalka yarna furo waxaad noqonaysaa daawadaha ugu horeeya ee video-gaygu soo gaarayo dhac